kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida ee caalamka oo aad ka daawataan channelkeena Dugal Media. qodobada aan idin haynana waxaa kamid ah xiisad culus oo ka taagan deegaanka Gubadley kadib markii isku weer laga qabtay ciidamada halkaasi ku sugnaa oo hogaaminayay General Saney oo cabsi laga qabo inuu ka soo jeesto dhanka Shariif. haddaba cabsida hadda soo wajahday Xasan Sheekh Maxamuud ee ku aadan dhaqdhaqaaqyada culus ee ka socda halkaasi kadib markii la arkay ciidamo culus oo ka soo dhaqaaqaya gobolka Shabeellada Dhexe isla markaana ku soo wajahan magaalada Muqdisho, kuwaasoo la sheegay inay isku beel yihiin Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo kamid ah mucaaradka ugu xoogan ee ku sugan Muqdisho isla markaana ka soo horjeeda siyaasadda Xasan Sheekh Maxamuud. ayaad wararkeena ku daawan doontaan. waxaa sidoo kale aad daawan doontaan Xuutiyiinta oo hanjabaadii ugu cusleed u diray Somaliland kadib markii Israel ay safiir u magacaawday Somaliland isla markaana la sheegay in Israel ay halkaasi ka sameysanayso saldhigyo ay ka ilaaliso badda cas, taasoo halis ku noqon karta Xuutiyiinta. haddaba halistii ugu weyneyd oo hadda ay wajahayaan deegaanada maamulka Somaliland ayaad wararkeena ku daawan doontaan. waxaa sidoo kale kamid ah wararka aad daawan doontaan isbedel cusub oo geeska Afrika kusoo wajahan kadib markii la sheegay in shir uu dhex maray Xasan Sheekh Maxamuud, Ismaaciil Cumar Geele iyo weliba Abiy Ahmed, kuwaasoo ku aadan xadeynta gobolka geeska Afrika ee wadamadan, iyadoo Itoobiya ay faa'iidada ugu weyn ku qabto xadeynta cusub ee ay sameynayaan saddexdan wadan. qodobadaas ayaa daawan doontaan ee kusoo dhawaada channelkeena Dugal Media oo subscribe saar si aad u heshiin xogii ugu dambeeyay aan halkan aan ku baahino. aynu ku bilowno. xiisad culus ayaa ka taagan deegaanka Gubadley kadib markii isku weer laga qabtay meel ay degnaayeen ciidamo uu hogaaminayo General Saney, kuwaasoo laga cabsi qabo in 15 May ay taageeraan dhaqdhaqaaqyada cusub ee mucaaradku ay bilaabi doonaan marka Xasan Sheekh Maxamuud oo xilku ka dhamaado. waxaa halkaasi ka taagan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadaan ciidamada Xasan Sheekh Maxamuud oo ku daabulay ee uu loo yaqaano ciidamada gaarka ah ee uu sameystay isla markaana kamid ah kuwa Baydhabo weeraray. General Saney ayaa la sheegay in ciidamo ugu badnaa oo halkaasi ku diyaarinayay muddooyinka ugu dambeeyay. ciidamada la duldhigay General Saney ayaa lagu tilmaamay inay muujinayso xiisadda sii kordhaysa ee u dhaxaysa mucaaradka iyo weliba Xasan Sheekh Maxamuud. wararka ayaa sheegaya in deegaanka Gubadley ay ka taagan tahay xiisad iyo weliba amni darro, taasoo ay markaasi si cakirmaysa kadib markii General Saney Cabdulle uu diiday in xeradii uu halkaasi ka degan yahay uu soo dejiyo ciidamo gaaraya 2,000 oo askari oo watay sargaal sare oo ka socday dowladda federaalka ee Soomaaliya oo Xasan Sheekh Maxamuud u xil saaray. ciidamadan oo si weyn loo qalabeeyay ayaa ugu dambeyntii degay meel aan ka fogeyn xerada uu ku sugan yihiin ciidamada uu hogaaminayo General Saney, kuwaasoo laga cabsi qabo inay taageeraan mucaaradka. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay in cabsi weyn ay soo wajahday kadib markii uu dhawaan ku baraarugay 200 askari iyo weliba hubkooda u dhameystiran yihiin oo si toos ah uga amar qaatay Saney isla markaana ku soo wajahan magaalada Muqdisho, kuwaasoo dhaqaaqyadooda ka bilaabay gobolka Shabeellada Dhexe. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay inuu la tashtay saaxiibadiisa kadib markii ay u sheegeen in ciidankaasi Saney uu hogaaminayo ee ka amar qaata ay yihiin kuwa ugu horeeya ee loo isticmaali doono dhaqdhaqaaqyada mucaaradka 15 May haddii la gaaro oo ah goorta uu Xasan Sheekh Maxamuud xilku ka dhamaanayo. waxaana Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in hadda loo diyaar garoobo dhaqdhaqaaqyadaasi isla markaana ciidamo la duldhigo halka ay ku sugan yihiin ciidanka uu hogaaminayo General Saney. waxaana iyadoo laga duulayo amarka Xasan Sheekh Maxamuud la qaaday in ciidamo la duldhigo ciidamadaasi uu hogaaminayo General Saney, iyadoo lagu amray sargaalka inuusan sameyn karin wax dhaqdhaqaaq ah. waxaa la sheegay in markii hore General Saney loo sheegay inuu soo wareejiyo hubka iyo weliba ciidamada uu gacanta ku hayo, laakiin uu diiday isla markaana uu sheegay inuu isagoo leeyahay amarka ee ciidamadani. wararka qaar waxay sheegayaan in sargaalka iyo ciidamada ka amar qaatay ay markii dambe isku dhaarsadeen inay hubkooda aysan wareejin oo ay markaasi jilbaha aastaan haddii lasoo weeraro, isla markaana ay isdifaaci doonaan, taasoo sii kordhisay xiisadda u dhaxaysa ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee sida gaarka ah u tababaran iyo weliba ciidamada uu hogaaminayo General Saney oo ah kuwa militariya. talaabadan ayaa dadka waxindhandheeya waxay u arkaan inay xabaarsan tahay fariin dhiilo siyaasadeed oo culus, isla markaana muujinaysa kalsooni darro u dhaxaysa dowladda dhexe iyo weliba qaar kamid ah saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan kuwa militariga.
diidmada Sanay Cabdulle waxay imaanaysaa iyadoo shaki ku saabsan ujeedka dhabta ah ee ciidamada la keenay halkaasi uu jiro, waxaana si cad aan loo shaacin qorshaha howlgalka ay wadeen ciidamada halkaasi uu kasoo buuxiyey Janaan Sanay oo la sheegay inay isku dhow yihiin Shariif Sheekh Axmed oo ah mucaaradka ugu weyn ee hadda dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ay ka cabsanayso. dowladda Soomaaliya ayaa si hadda u muuqata mid qaadaysa tallaabooyin istaraatiiji ah oo ay ku xaajinayso amniga, gaar ahaan xilli la filayo inay dhacaan isbeddelyo siyaasadeed oo muhiim ah sida 15 May oo lagu wado in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ka dhamaanayso xilhayntiisa kursiga. sidaa darteedna keenista ciidamo dheeraad ah waxay noqon kartaa isku daya loogu hortagayo kacdoon ama falal hubeysan oo dowladda ka dhan ah, waxaana Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda bilaabay inuu qaado tallaabooyinkii weliba istaraatiijiyadii uu isaga difaaci lahaa duulaan kasta ama dhaqaaq kasta oo siyaasadeed uu uga imaan kara mucaaradka. arrintan ayaa la sheegay inaysan ahayn mid cusub, maadaama dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ka horeysay ee hore ugu dhaqaaqday tallaabo noocan oo kale ah markii ciidamo la duldhigay siyaasiyiinta iyo weliba saraakiisha loo arko inay halis xasilooni darro ku noqon karaan maamulka markaasi jira. waxaa hadda socda isbedelo looga hortegayo in saraakiisha sarsare gaar ahaan kuwa militariga ay kasoo horjeestaan dowladda islamarkaana ay taageeraan dhaqdhaqaaqyada mucaaradka, taasoo la rumaysan yahay in ay dowladda dhibaato ku keeni karto. waxaana saraakiisha laga cabsi qabo qaarkood laga qaaday xelalka ama qaarkood lagu wareejiyey ciidamadii ay u talinayeen, islamarkaana qudhooda la duldhigay ciidamo guryahooda lagu geeyey. tallaabooyinkan waxay keeni karaan sida la sheegay saameyn ballaaran oo ku saabsan midnimada ciidanka iyo weliba kalsoonida shacabka haddii si taxadar leh loo maareynin, waxayna abuuri karaan kala qaybsanaan gudaha ah oo sii fogey karta xaaladda hadda jirta. saraakiisha qaar ee militariga ee ku dhowdhow siyaasiyiinta mucaaradka ayaa la sheegay inay isku dhaarsadeen in ciidamada iyo hubka ay haystaan aysan wareejin, iyagoo sheegay in haddii waqtigu ka dhammaado Xasan Sheekh Maxamuud aysan ka amar qaado doonin, islamarkaana uu noqon doono maamul waqtigiisa dhammaaday. arrintan ayaa imaanaysa iyadoo mucaaradku ay Muqdisho ka wadaan dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey iyo weliba kulamo kala duwan oo looga hadlayo waxa laga yeelayo haddii Xasan Sheekh Maxamuud oo waqtigu ka dhamaaday islamarkaana uu kusii adkaysto inuu xilka sii joogo. dhanka kalena xuutiyiinta Yemen ayaa u hanjabay Somaliland iyadoona halistii ugu weyneed ay wajahayaan deegaanada maamulkaasi kadib markii Israel ay sheegtay inay safiir u magacaawday maamulka Somaliland islamarkaana ay saldhigyo halkaasi ka samayso doonto. wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka xuutiyiinta Yemen ayaa si adag uga digtay waxay ku tilmaamtay doorka sii koreeyay Israel ay ka wado Soomaaliya, gaar ahaan maamulka Somaliland ee gooni goosadka ah, iyadoo sheegtay in magacaabista safiirka cusub ee Hargeysa ay tahay xadgudub ka dhan ah qarannimada Soomaaliya islamarkaana ay halis geli karto xasiloonida marinbiyoodka badda cas. bayaan lagu baahiyey wakaalada wararka ee Sabah ee Yemen oo ay maamulaan kooxda xuutiyiinta ee fadhigooda ee caasimada Sanca ayaa wasaaraddu ku sheegtay in joogis kasta oo Israel ay ku yeelato Somaliland uu yahay qad cas oo aan la aqbali karin. maamulka ayaa ku eedeeyay dowladda Israel inay doonayso in maamulka gooni goosadka ah ay u adeegsato aagag laga abaabulo falal ka dhan ah Soomaaliya iyo dalalka kale ee gobolka. wasaaradda Yemen ayaa sheegtay in tallaabadan ay tahay xadgudub qaawan oo ka dhan ah sharciga caalamiga ah iyo madax banaanida, xurnimada iyo weliba wadajirka dhuleed ee Soomaaliya, maadaama maamulka Somaliland uu ka mid yahay dhulka jamhuuriyadda islamarkaana ay jamhuuriyadda Soomaaliya aysan u fasixin maamulka Israel. sidoo kale xuutiyiintu waxay ka digeen in joogitaanka Israel ee Somaliland uu wiiqi karo amniga geeska Afrika, wuxuuna khatar toos ah ku yahay badda cas, gacanka Carmeed iyo weliba isu socodka maraakiibta caalamiga ah iyo guud ahaan ganacsiga adduunka. bayaanka xuutiyiinta ayaa baaq degdeg ah u diray wadamada dhaca xeebaha badda cas iyo weliba sidoo kale dalalka Carbeed iyo kuwa Islaamka ah si ay u qaataan tallaabooyin dhab ah oo looga hortagayo qorshaha Israel ee Soomaaliya. digniinahan xasaasiga ah ayaa kusoo beegmaya maalmo kadib markii Israel ay ku dhawaaqday in diblomaasi loo magacaabo Major Lotem uu noqon doono safiirkii ugu horeeyay ee Somaliland. tallaabadani waxay sii qoto dheereynaysaa xiriirka Tel Aviv iyo weliba maamulka ismagacaabay, waxaana taasi ay si weyn uga careysiisay dowladda Muqdisho, sidoo kalena soo jiidatay indhaha dalalka ku yaala gobolka.
Israel ayaa si rasmi ah u aqoonsatay maamulka Somaliland bishii December ee sanadkii hore ayadoona noqotay wadankii ugu horeeyay ee tallaabadaasi qaada. Dowladda Soomaaliya ayaa markiiba si kulul ugu cambaaraysay go'aankaasi iyadoo ku adkeysanaysa in Somaliland ay tahay qayb aan marnaba ka go'in dhulka Soomaaliyeed, isla markaana xiriir kasta oo shisheeye lala yeesho ee Hargeysa u ogolaato u yahay mid sharci darro ah. Somaliland ayaa ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya sanadkii 1991 kadib markii dowladda dhexe ay burburtay. Tan iyo xilligaasi waxay dhisatay dowlad, hay'ado iyo waliba lacag gaar ah, balse Soomaaliya iyo inta badan beesha caalamka ayaa weli u aqoonsan inay tahay qayb ka mid ah dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya. meesha istiraatiijiga ah ay ku taalo Somaliland isla markaana qusaysa gacanka Carmeed oo ku dhow mid ka mid ah marinada badda ee ugu mashquulka badan adduunka, kana soo horjeeda qaybaha Xuutiyiinta Yemen ay ka maamulaan dalka Yemen, ayaa xiriirka Israa'iil iyo Hargeysa ka dhigtay mid leh saameyn ka baxsan xuduudaha Geeska Afrika. Kooxda Xuutiyiinta oo gacanta ku haysa inta badan waqooyiga Yemen oo ay ku jirto caasimadda Sanca ayaa muddo bilo ah qalalaasaha amniga badda cas ku xiray iskoorimadyada ballaaran ee ay kula jiraan Israa'iil. hadalkooda dambe ayaa si cad u muujinaya inay hadda u arkaan dhaqdhaqaaqa diblomaasiyadeed ee Israa'iil ee Somaliland inuu yahay qayb loolanka gobolka ka socda ka mid ah, waxaana maamulka Xuutiyiinta Yemen ay hadda ku dhawaaqeen in dhaqdhaqaaq kasta oo Israa'iil ay ka sameyso deegaanada maamulka Somaliland oo bartilmaameed u yahay marnaba u dulqaadan doonin haddii Israa'iil ay halkaasi ka sameysato fariisimo, isla markaana ay ku dhawaaqdo tallaabooyin dhaawici kara isu socodka iyo waliba dhaqdhaqaaqa badda cas iyo waliba Yemen. waxaana sheegeen in Xuutiyiinta Yemen in dhaqdhaqaaq kasta oo Israa'iil ay halkaasi ka sameyso oo iyaga khatar ku yahay, waxaana sheegeen in Somaliland ay noqon doonto bartilmaameed, isla markaana duqeymaha xoog kooxda Xuutiyiinta ee Yemen ee Israa'iil ay u soo wareegi karto dhanka maamulka Somaliland iyo waliba deegaanada uu ka arrimiyo, kuwaasoo bartilmaameed noqon kara. cabsida ugu weyneed ayaa hadda ka taagan deegaanada Somaliland, waxaana laga dhowr sugayaa dhaqdhaqaaqa Israa'iil ay sameyso kaasoo jawaabtiisa la heli karo goorta Israa'iil ay ku dhaqaaqdo qorshaha ay ka damacsan tahay deegaanada maamulka Somaliland oo ay ku jiri karaan saldhigyo ciidan.